Xukuumadda Falastiin oo shaacisay in ay joojisay xil ay u haysay Ururka Jaamacadda Carabta. Wasiirka Arrimaha Dibadda Falastiin ayaa sheegay in dalkiisa ay joojiyeen gudoomiyanimadii ay hadda u haysay shirarka Jaamacadda Carabta, waxayna cambaareysay sharaf dhac kasta oo ku yimaada dowladaha Carabeed oo ah in ay xiriir rasmi ah la yeeshaan maamulka Israa'iil. Falastiin waxay ahayd in ay hogaamiso shirarka Jaamacadda Carabta 6 bilood ee soo socota, laakiin wasiirka arrimaha dibadda Riyaad al-Maliki ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada la haysto ee daanta galbeed ee Ramallah wuxuu ku sheegay inaysan mar dambe dooneyn jagada shirguddoonka Jaamacadda Carabta. Falastiin waxay go'aansatay in ay aqbasho xaqeeda ay u leedahay in ay guddoomiye u noqoto Golaha Wasiirada Arrimaha Dibadda. Kalfadhigooda hadda sharaf ma leh in la arko Carabta oo ku degdegaya dhanka caadiga intii ay madaxweyne ahaan lahaayeen. Maliki ayaa sidaas yiri. Hadalkiisa si gaar ah uma uusan magacaabin Imaaraadka iyo Baxrayn, dalalka Khaliijka Carabta ee la wadaagaya Israa'iil walaaca ay ka qabto Iiraan. Wuxuu sheegay in xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta Axmed Abul-Jiid lagu wargeliyay go'aanka Falastiin.